bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan halkani waa channelka wararka ee Soomaali News ku soo dhawaada tabinta maalin qodobada ugu waaweyn waxa qaybka laweyna farmaajo looga adkaada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Garbaharre iyo hal arrin oo sabab ah dagaalo u dhaxeeya beelo wadadaga gobolka Galgaduud oo sababay khasaare kala duwan iyo galmudug oo ku guul dareysatay inay wax ka qabato ganacsatada suuqa Bakaaraha wada hadal la bilaabo ururka Daacishka dib culays ay saareen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11 ee doorashadiisa dalka ka socoto laga cabsi qabay inay xubno ka tirsan al-shabaab ay ka mid noqdaan iyo Mareykanku oo dawladda Qatar u aqoonsaday inay ka mid tahay saaxiibada daacad u ah qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa timinta maalinimo ee wararka Soomaali News ee u diyaar garooba mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa kooda bisha 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahino haddii ayna ku bilowno madaxweyne farmaajo ayaa looga adkaaday maamulada doorashada kuraasta ee taalla magaalada Garbaharre waxaana sabab u ah hal arrin dhacdadaasi madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lumiyay firfircoonidii uu ku lahaa habka maamulka doorashada 16 kursi ee taalla magaalada Garbaharre ee gobolka Gado Farmaajo ayaa arrintan sabab uga dhigay inuu waayo garab kamid ah raggii uu la damacsano inuu ku soo saaro oo ay iska diideen kuwaas oo ka baqaya inay waayaan kuraastaasi ila wareediyo ku dhow oo la socdo xubnaha qabanqaabada ee doorashada ka wada degmada Garbaharre ayaa sheegay in siyaasiyiinta dhinaca Farmaajo ay haatan iska diideen kuraastaasi dad badan oo lagu tirinaya dhinaca Farmaajo ayaa waayay xilal ay rabeen sidii ku dhacday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan doorashooyinkooda halkaas ka dhaceen khilaafka xoogaysta ee Farmaajo Rooblaha ayaa dhabarjab ku noqday damaca filla Soomaaliya oo ay rabto inay u boobto shakhsiyaad gooni ah kuraastii taallay gobolka Gado oo Farmaajo si weyn ugu tashanayay haddaba qorshaha Farmaajo ayaa kala ah dhowr qaybood oo kuwan ah kooxo ka shaqeeya diyaarinta musharaxiin malxiis ah oo diiwaangelinta u badiyo xubnaha markaasi uu doonayo inay xilkaasi qaataan labo xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka inkastoo la eriyo balse hadafka laga lahaa ayaa ahaa inay xalaalayaan kuraastaasi muran kadib saddex guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban oo wakiilo ka tirsan oo warbixin maangal ah u gudbinaya marka la doorto kuraastaasi afar saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka oo sameynaya tallaabooyin ay ku muujinayaan dhexdhexaadnimo balse dhinaca Farmaajo si hoose ugu xiran shan diyaarinta odayaal beeladyo ka soo jeeda beelaha leh kursiga kuwaas oo door firfircoon ku dhexle go'aaminta iyo soo xulista ergada bulshadooda dhammaan damacaasi waxa albaabada isugu dhuftay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo oriyay xubnaha qaar kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka halka guddiyada doorashooyinka uu ka dalbaday inay soo gudbiyaan odayaashii xubnaha bulshada rayidka ee soo xulaya ergada lana soo bandhigo si loo wada arko laguna qanco filla Soomaaliya ayaa dhaqaale badan ku bixisa habka maamulka gobolka Gado si uu u boobto kuraasta 16 kursi ee golaha shacabka ayaa awoodi weysinay si xaqtiisato maadaama madaxweynaha Jubbaland dhankiisu uu dejiyay qorshe ka dhana Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo ku kala aragti duwan habka maamulka doorashada gobolka Gado ayaa dejiyay qorshaha in ciidamada AMISOM la geeyo Garbaharre kadibna loo geeyo xubnaha doorashooyinka Jubbaland degmada Garbaharre ayaa waxa ka socda howlgallo ay wadaan laamaha ammaanka degmadaasi waxaana lagu wadaa inay haatan ay gaaraan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo kuwa Jubbaland taliska booliska Garbaharre ayaa warbaahinta u sheegay in ay baaritaanka ay iska kaashanayaan ciidamada nabad sugidda booliska iyo kuwa xooga dalka magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado waxa lagu dooran doonaa 16 kursi ee golaha shacabka sida ay ku xusan heshiiska laga gaaray doorashooyinka dalka laguna jaangooyay in dowlad goboleed walba laba magaalo uu ku doorto xildhibaanada aqalka sare ee golaha shacabka balse maamulka Jubbaland ayaa saameyn togan ku lahayn doorashada gobolka Gado maadaama khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo madaxweynaha Jubbaland madaxweyne Farmaajo ayaa haatan rajo xumo weyn ka muujinaya doorashada 16 kursi oo si weyn filla Soomaaliya ugu tashanaysa ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Gado oo dhawaan Garbaharre doorashadooda ay ka dhici doonto xafiiska ra'iisul wasaare Rooble iyo sidoo kale filla Soomaaliya ayaana tartan xoogan ugu jiro hanashada kuraasta golaha shacabka iyo sidoo qolo ka saabo oo tiin ayada ku dhanaca u soo saaran lahayd muran badan ayaa hareeyay golaha shacabka xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay maamulada iyo sidoo kale kuwa doorashadooda lagu qabto caasimada dalka taas oo musuqmaasuq baan xilligan lagu eedanayo shakhsiyaadka doorashada saameynta ku leeyahay madaxda maamul goboleedyada intaba markana guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo hore u magacaabay ra'iisul wasaare Rooble ayaa si adag uga hadlay doorashada dalka ka socotay golaha shacabka iyagoona digniin culus ka soo saaray boob lagu hayo kuraasta baarlamaanka dalka
Marwa Caaisha Siyaad oo kamid ah xubnaha guddigan ayaa sheegtay in ay ka digayaan in la boobo kuraasta loo qorsheeyay haweenka ee baarlamaanka kadib wareysi ay siisay mid kamid ah warbaahinta dalka. Markaana faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helaya dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed. Dagaalkan ayaa ka qarxay duleedka Koonfureed ee degmada Balanbale ee gobolkaasi waxaana socday intuu socday la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan oo sababay khasaare kala duwan. Wararka ayna ka helayna ayaa dirirtaasi dhexmartay labada maleeshiyo beelood waxay muddo isku hayeen arrimo la xiriira aana qabiil oo ka taagan halkaasi. oo yaraan 7 ruux ayaa ku dhimatay dagaalkaas halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan waxayna siday noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah halkaasi ka bilowda barakac xooggan oo dadka ay bulshada xoolo dhaqatada ay ku dhaqneed oo horey abaar u saameysay ay bilaabeen. Dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa sidoo kale isugu jiro dadkii dagaalamay iyo shacab ku sugnaa halka uu dagaalka ka dhacay. Sidoo kale wararka ayaa inta ku darayay intuu dagaalku socday in ka badan 15 guud oo ay deganaayeen qoysas xoolo dhaqato ah halkaasi ay ku saameeyeen dagaalada sidaasna ay isaga qaxeen. Xaaladda ayaa weli kacsan halkaasi ka taagan waxaana soo fadhiya maleeshiyaadka labada dhinac ee ku dagaalamay koonfurta degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. dagaal beeladeedan ayaa ku soo noqnoqday deegaankaasi waxaana Galmudug ilaa hadda aysan jirin tilaabo ay qaaday maadaama horey dagaalo khasaare geystay halkaasi maleeshiyaadkan mar kale ku dagaalamayaan oo ka dhacay. maamulka Galmudug ayaa mooday in waayihii dambe uu ku fashilmayo dhanka ammaanka deegaanada maadaama al-shabaab ay dhinacyo ka wadaan dhaqdhaqaaq xoogan isla markaana dagaalo xoogan waayihii dambe ay kula jireen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Galmudug halka beelaha qaarna ay dagaalo ku dhexmareen gudaha deegaanada maamulka Galmudug. wax wara iyo sidoo kale ciidamo ku aadan ee la kala dhexdhigaya dadka halkaasi ku dagaalamay ee maleeshiyaadka ma jiraan waxaana moodaa inuu ku guuldareystay Galmudug tiro dhowr jeer wax ka qabashada dagaal beeladyada ayaa ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo qasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur intaba waxaana jirin tilaabo cad oo maamulka madaxweyne Qorqor uu hogaamiyay ilaa hadda uu qaadayo. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka doorashadu ay dalka ka socotay 11 ayaa cabsi laga qabaa inay ka muuqdaan xubno ka tirsan ururka al-shabaab. xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo kamid ah baarlamaankii 10aad ee waqtigiisu dhamaaday oo dhawaan laga reebay tartan uu kursigiisa lagu soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ka deeriyay hanaanka u socota doorashada dalka. waxa uu sheegay in dalku uu qatar ugu jiro inay ku soo baxaan xildhibaano al-shabaab ah. waxaan ka baqayaa in baarlamaanka 11 ay ka mid noqdaan argagixiso waxaana la yaabanahay dalka siduu ku socdo. xukuumadii loo xil saaray doorashada howlo kale ay ku mashquulsan tahay waxaana sheegay in rag taageersan nidaamka farmaajo in ay doorashada ku howlan yihiin isla markaana ay soo jeediyeen in asaga doorashadii Koonfur Galbeed ka dhacdo oo kamid ahaa shakhsiyaad ku tartamayay la soo jeediyay in laga reebo. rag kuraasta loo soo diiday waxay isugu eedeynayaan inay ahaayeen mucaarad. ragga kuraasta loo soo diiday waxay ku eedeynayeen inay ahaayeen mucaarad waxayna yiraahdeen 20 sano ayaan kursiga ku fadhinay nin kasta oo xukunka yimaadana muxaafid ayaan u ahaa farmaajo ayay soo saareen. xildhibaan Cabdi Idris Dhakhtar ayaana ka deeriyay qaabkii doorashada dalka ku socotay isla markaana isagoo sheegay shakhsiyaad badan oo lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab haatan ay xildhibaano ku soo baxeen kuwa kalena la qorsheynayo inay soo saaraan xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay maamulada iyo sidoo kale Muqdishoba. waxa uu ka deeriyay habka madaxda maamul goboleedyada u muxulayaan xildhibaanada iyo kuraasta loo xirayo maadaama doorashada dalka ka socotay shirkii ugu dambeeyay golaha wadatashiga qaranka lagu garfeeyay inay noqoto doorasho daahfuran balse taasi ay burtay. inta ayaan ku soo gabagabaynaa daawadayaal barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid inta kulmi doona qayaar nabadgelyo.